أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان وحنا قبل لابنيا تفسير القرآن الكريم وتلاوته وتعلمه وتعليمه. تفسير كقرآن كريم كأه تلاوديسا هي تعلم كيسا هي تعليم تيسا ayaa halkaan noogaga bilaabanaya. waa ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkan wixii alla uu keenay wixii ugu khayrka badnaay, wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyadiisa uu siiyey wixii ugu khayrka badnaay, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam mucjisooyinkii la siiyey tii ugu weyneeday, kitaabkii markaasi la siiyey ummadiisa oo ayaduna ah ummadaha kuwa ugu khayrka badanne, ilaahayna uu usoo diray rasuulkii rususha ugu khayrka badnaay iyo khalqiga ilaahay dhammaantooda cala al-idlaaq. ilaahay mahadiisa waxaanu doonaynaa halkan inuu noogaga bilowdo iyadoo casharkii koobaad aynu ka dhigayno qur-aanka fadiilatu lqur'aani alkariim wa tilaawatihi wa tacalumihi wa tacliimihi. qur-aanka kariimka fadliga uu iska leeyahay iyo akhrinta qur-aanka la akhriyo fadliga ay iska leedahay, qur-aanka barashadiisa iyo baridiisa fadliga uu iska leeyahay ayaanu ka bilaabaynaa casharkeena koobaad. waxaa noo socon doona marka haddii ilaahay yidhaahdo wax badan oo markaasi qur-aanka ku tacalluqaaya, qur-aanka wixii makiya wixii madaniya, qur-aanka sida uu usoo degay, kayfiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka lawxul maxfuud uga soo qaaday, samaa-u dunya lagu keenay, kabacdi waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey calaa xasabi alwaqaa'ic, ayadoo markaasi waxaa weeye la maray siniin badan oo markaasi 23 sano gaaraysa. arrimahaas oo waxa weeye qayb walba aanu gooni u soo qaadan doono ayaanu ku soo qaadanaynaa. ilaahay idankiisa waxaa noo bilaaban doona muddo bacdigeedna waxa weeye suuraddii qur-aanka ugu horeysay oo ilaahay uu ku bilowday qur-aanka oo suuratul faatixa, oo ayadana waxa weeye waxa ay suuratul faatixa qur-aanka ugu tahay iyo waxa ay tahay fadaaisheeda, waxa ay iska leedahay wax badan ay ku jiri doonaan, sida waxa weeye tafaasiir badan oo horay loo soo maray laga soo dhageystay oonu ku soo qaadanay. marka tafsiirka kan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku bilaabaynaa fadlul qur'aani alkariim, qur-aanka kariimka fadliga uu iska leeyahay. waxaan soo qaadan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo aayado qur'aan iyo axaadiis oo ilaahayna qur-aanka uga waramay fadaaisha uu iska leeyahay, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu ka waramay. maxaa yeelay mar haddii aan kitaabka ilaahay gudagelayno iyadoon hadda qur-aanka waxa uu yahay wax soo koobi kara aysan jirin, oo in faham lagu soo ixaadeeyo ama lagu soo koobo uu qur-aanku uu ka weyn yahay, oo qur-aan uu cadiima uu yahay, haddana waxa weeye bacdi uun ka mid ah si markaasi qofka muslimka ah oo mu'minka ah oo jecel qur-aanka kariimka ah oo kalaamkii ilaahay oo qadiimka ah khayru khalqillaahina ilaahay uu ku soo dejiyey, si markaasi waxa weeye asagoo wax ka fahamsan oo markaasi qur-aanka u akhristo oo u barto ayaa haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu soo qaadanaynaa aayado dhowrahoo qur-aanka fadaaishiisa ka waramaya iyo axaadiisi rasuulka calayhi salaatu wasalaam
quraanka fadaaishiisa ugu waramay taasoo insha Allah ta'ala noo noqon doonta dhowr cashar noo noqon doonta haddaanu maaragtay ku hormarno aayadaha quraanka ah bacdi kamida aanu soo qaadano ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور إلهي سبحانه وتعالى إساقو رسول كيسة تصايا وحيغا كان لو وحيوذي قرآنك كريمك إنه لمد يهي وحيغي لو وحيو جري أنبياد إساقا كهو رئيسي إيا مزيادة خاصة هو قرآنك إسكالي يهي إلهي رسول كيسا وحو كلهي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا رسولك إلهي يو وحانكو وحيوني سيدان او وحيوني أنبيادي عديك كاهو الرئيسي وكذلك أوحينا إليك سيدان او وحيوني أنبيادي عديك كاهو الرئيسي واد أدوغو مركاسي أدوغو الضنبايصود رسوشي إلهي لغوغو ختمي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هودا إلهي روح أيانكو وحيوني وأمر كينا كمده مركا هذا وحوي إلهي قرآنك وهو كعبري روح waa quraanka waxa ruux looga cabiray wax sahlan ma ahan waxa quraanka ruux looga cabiray لانه تحيا القلوب به waxa weeye quraanka waxa ku noolaanaya qulubta ayaa ku noolaanaysa qulub aan quraan ku jirin waa qulub dhinsan weeye sida rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam uu dhahay qofkii waxa weeye qalbigiisa wax quraan aysan ku jirin masalul ladii laysa fi jawfihi shay'un min alqur'ani kal baytil kharib yow dha rasuulka kaleey salaatu wasalaam qofka waxa weeye qalbigiisa wax quraan aysan ku jirin wuxuu la mid yahay guri kharaabay guri jajabay oo dumay amaan cid ku jirin ee bahluhu ay isagaga jiraan quraanshadu ku jirto dooliga ama jiirka oo ku jiro waxa weeye mukulaaladu ku jiraan eeyuhu ay ku jiraan qumaamada ama waxa qashinka la isaga tuuraayo qalbiga aan quraan ku jirin saasoo kale noqonaya sidaas uu rasuulkeena kaleey salaam uu ku tilmaamay marka hadda waxa weeye quraanki qofkii ilaahay qalbigiisa quraanka uu galisho oo quraanka ku amal falaya qof qalbigiisa uu nool yahay waxa uu leeyahay laba ruux oo iska leeyahay ruuxdii caadiga aheeday oo jasadku uu ku dhaqdhaqaaqay iyo ruuxda tan macnawiga ah oo qalbigiisa uu ku nuuraayo ayuu iska leeyahay qofku markuu maaratay saaxibul quraan uu yahay waa qof markaas laba ruux leh laba ruux ayuu iska leeyahay marka hada qofkii aan quraan aqoonin oo guri kharaaba nabiga kaleey salaam oo ku miisaariye qalbigiisa wuxuu leeyahay hal ruux oo iska leeyahay oo markaas la yiraahdo ruuxul ajsaam la yiraahdo jirkaas ruuxda ay ku dhaqaaqayso taasuna waxa weeye wixii noolaa oo dhan ayay ka dhaxaysaa oo xayawaanka caadiga ah waxa weeye asaguba waxa weeye ruux waa qaba oo markaas ruuxul ajsaam waa qaba qofka marka doosan quraan aqoonin wuxuu la mid noqonayaa xayawaanka caadiga oo la mid noqonayaa xayawaankaas waxba kama duwanaanayo ayadoo markaas wixii noolaaba xayawaan la yiraahdo haddana waxa weeye qofku hadoosan quraan lahaynin oosan quraan aqoonin wuxuu noqonayaa qof markaas xayawaankaas waxba aanan ka duwanayn noqonayaa maxaa yeelay xayawaanku wax waa cunaa waxna waa cabaa waxna waa dhalaa waana xarakaada marka qofka aan diinta lahayno waxa uu la mid yahay xayawaankaas uu la mid qaalada ilaahay markuu tilmaamayo ilaahay wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala walaqad dara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-insi
lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha ulaa'ika kal ancaami ul ilaahay. dadka ilaahay jahannamo u abuuray oo kufaarta ah wax quluuba ma laha, dhego ay wax ku maqlaan ma laha, qalbi ay wax ku qaadaan ma laha. markaasuu dha ilaahay waxay la mid yihiin ancaamta xoolaha geela iyo ariga iyo looda iyo xayawaanka kale la mid yihiin. bal hum adallu sabiilan, ayagaaba kasii baadiyaysanba. maxaa yeele xayawaanka asaga wixii loogugu talagalay oo ilaahay u abuura ayaa sidaas, laakiin ayagoo bani aadam ahoo ilaahay karaameeyey markay ka tageen ilaahay diintiisa oo qur-aankii ay beeniyeen oo aysan diin laawayaal ay yihiin, waxay ka liitaan xayawaanka. mar haddii xayawaanka ay ka liitaan, waxay markaasi ay u noqdeen xaabo, ay u noqdeen naarta jahannamay xaabo u noqdeen. taas waxaa keena markaasi diin la-aanta ayaa keena. marka waxa weeye markaasi waa xayawaan oo kalentood weeye. qur-aankii marka waxaa loogaga baxayaa in laga duwanaado xayawaanka oo maalaa yacqilka laga duwanaado, oo markaasi lagu sharafoobo ayaa markaasaa qur-aankii waxaa weeye saasuu keenayaa. ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaanu. qur-aankan hortiisow dhahay nebi maxamedow, sayidka maxamedka ahow, kitaab wuxuu yahay ma aadan aqoonin, iimaan wuxuu yahayna ma aqoonin. walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina. laakiin qur-aankaas ayaanu kugu soo dejinnay, waxaana ka dhignay nuur oo aanu ku hanuuninayno qofkii aan doonno oo addoomankayna. qur-aankaas marka qofkii waxaa weeye ilaahay ou doono oo qof alla uu jeclaaday ah, oo nuur ayaa nuur looga dhigayaa, ilaahayna uu ku hanuuninayaa. qofkii kitaabkaas ku hanuuna qof ilaahay jecel yaha weeye subxaanahu wa tacaala. maxaa yeele walaakin jacalnaahu nuuran nahdii bihi man nashaau min cibaadina. annagoo aayaddaasna haddii alla yidhaahdo maxalkeeda ugu tegi doona, oo insha allahu tacaala suuratu shuura aakhirkeeda ugu tegi doona, oo tafsiirkeeda iyo maaragtay waxay tahay si xoog la meeshaas ugu qaadan doona. marka haddee markii ilaahay saas yirina wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiimin ow ilaahay, nebi maxamedow dadka waxaad ku hanuuninaysaa ilaahay addoomankiisa dariiq toosan ayaad ku hanuuninaysaa. siraadillaahi aladii lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard, ilaahay wadadiisa oo koonkan iska leh, samaawaadkan wixii jooga wixii arladaas jooga caqligana uusan gudbi karin. wadadaasaad ku hanuuninaysaa ilaahay addoomankiisane. hanuunka nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadda uu hanuunaayene waxaa weeye kitaabkaas qur-aanka uu ku hanuunayaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey. marka kitaabkii inaanu ku hanuuno ayaa loo baahan yahay, oo sida uu ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa u siiyey ummaddiisana ugu hanuunaayo, dadkii ku hanuunayay inaan noqono oonu ka duwanaano kuwa markaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay guri kharaaba uu ku tilmaamay. dee qur-aan la-aantu saasay keenaysaa inaad guri kharaaba noqoto, qalbigaagu uu noqdo oo waxa weeye wasaqa, oo hadda waxa weeye wax gelaayo xataa bani aadam aysan jirin oo laga hijrooday. saasoo kalentood inuu qalbigaagu noqdo waa inaad ka ilaalisaa, oo qur-aanka aad barato ood fahamto, ood macnihiisa fahamto, ood qiraadiisa aad laasimto ayaa loo baahan yahay. marka haddee qur-aankaane ilaahay rasuulkiisa wuxuu dhahay wa innahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun. nebi maxamedow qur-aankaanu sharaf ayuu ku yahay, ladikrun laka waliqawmika ow dha ilaahay. aayaddaas ayadana tafsiirkeeda iyo lakadaas waxay keenaysa iyo waxaan ugu tegi doonaa, baabkeedan ugu tegi doonaa. qoonkaagane sharaf ayuu qur-aanku u yahay. haddee rasuulkii oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharfay oo khalqigiisa midka uu khayrka badanna uu ka dhigay, ayaa haddana alla wuxuu leeyahay qur-aankii sharafow kuu yahay. waa sharaf lagu sii diray. haddee intaas laguma ekayne waliqawmika ow dha ilaahay, ummadaadana qur-aanku sharaf ayuu u yahay. hadda marka qur-aankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay sharafta ugaga dhigay, ilaahay ummadiisana intii nabiga rumaysa calayhi salaatu wasalaam oo kitaabkaas ilaahay rasuulka uu ku soo dejiyey qaadatay, ayadana waxa weeye waa ku sharafoobaysaa. laakiin haddii waxa weeye kitaabkii markii laga tago, kitaabku ma ahan kaliya uun in lafdiga la iska akhristo xoogaa uun maaragtay
tabarruk iyo wax laga dhigdhigto ma aha kitaabku waxa weeye in kulliyan la qaato ayaa loo baahan yahay oo kitaabka lagu amal falo oo meelna markaasi xugun kamida xaraf kamida aan markaasi waxa weeye aan laga taginaal raba quraanka ina qayb lagu amal falo qaybna laga tago waxa weeye taas markaasi iimaan ma aha nimankii yahuuda ahay waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala markay waxna ay tawreed sheegayaan waxna ay qariyeen inta badan waa ku tagi doonaa hadii alla ila suuratul baqara aayadaas nusulkeeda iyo waxay ku timide ilaahay wuxuu dhahay afatu'minuna bi ba'd al-kitaabi wa takfuruna bi ba'd oo kitaabka waxa weeye bar miyaad rumaynaysaa barna ma ku kufrinaysaa oo ma diidaysaa fama jazaa'u man yaf'alu dhalika illa khizyun fil hayati dunya wa yawm al-qiyamati yuraduna ila ashadil 'adaabi saasoo dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala marka hadda kitaabka qaar ina la qaato qaarna laga tago iimaan ma aha kitaabka rumayntiisa ma aha kitaabka waxa weeye dhamaantiisa in la qaato ayaa loo baahan yahay oo wax ka soo ahkaamuhu ku soo arooray quraanku waxa weeye waxa uu ka kooban yahay 9 qaybood ayuu ka kooban yahay intaasoo dhanba in la qaataa loo baahan yahay wax laga taga malaha dadka muslimiinta ah waxa loogaga digayaa inay kitaabka qaybna ay markaasi sheegtaan oo yiraahdaan kitaabki waxa weeye quraanki aan maarata intaan qaadayna aayada quraanka sheegaysa wax badan oo ayaga laga reebayna ay maarata oo quraanku uu ka reebayo aysan ka harin ama wax badan oo quraanku faray aysan fartoomin taas waxa weeye sheegashadaas waa mid baadila waay asaga kitaabka quraanka la qaato sida hadda aan ku tagi doono ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala umadiisa sharaf u yeelaya umadiisa ilaahay subhanahu wa naxariisanaya wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin ilaahay subhanahu wa ta'ala rasuulka asoo adduunkan rahmadu ayaa ilaahay soo diray rahmad ilaahay subhanahu wa ta'ala koonkan u soo hadiyay way quraanka isaguna rahmad way waan ku tagi doonaa hadii ilaahay yiraahdo qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajma'un ayadaasna suuratu yunus tafsiirkeeda waa ku tagi doonaa marka hadda quraanki la dhikrun laka wa ilaahi wa liqawmika wa sawfa tusalun waana lidinka su'aali doonaa quraanki sidaas ahay inaad ku amal fasheen inaadan ku amal falina ilaahi subhanahu wa ta'ala caalim ayuu ku yahay maalinta qiyaamo alla hortiisa la idin soo joojinaya wixii aad uga amal fasheen kitaabkaas baa la idin weydiinaya inaad ku sharafowdeen iyo inaadan ku sharafoobina maalintaas aad kala ogaanaysaan hadda quraanka sharaftiisa qofka ku sharafooba waa qofka ku amal fala sidaan ku tagi doono qofka aan ku sharafoobin oo quraanka ku khasaaray oo xujada uu ku noqdane waa qofka amalkiisa ka tagay waa dhibaatada marka jirta oo umada islaamka haysata waa inay kitaabkooda ay ka tagaan ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ضدك مؤمنين تاهو هداد إلهي كتاب كيس الدين كعلى دو قرقارتان إلهي مركزو إذين قرقاريا نصر إلهي أنكهلنو يقول أنكهلنو عدو إسلام كو كفارتا يا منافقين تا ويكو حرنتا يا شرد يكو حرنتو يهي إنا أنه إلهي كتاب كيس أقرقارنو كتابك إلهي مركز أقرقارنو waxaan u gargaari karnaa markaan kitaabka ku amal falayno sheegasho waxba tari mayso zacmi waxa weeye iddiaa ul kadib waaye been la iska sheegto waaye waxba ma taraysa taas markaas idin gargaaraya way sabid aqdaamakum ilaahi markaasuu macrakatul jihad ilaahi markaasuu cagiina ku adkaynayo gaalada adka adkaanaysa hada waxa weeye ilaahi been looma sheegi kare arintaas dadka muslimiinta hortaala oo muuminiinta إلهي وأناديي وحونا دحي الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم هدي إلهي كتاب كيس أدو قرقارتان أيا الله إذين قرقاريا هذا كتاب إلهي نصر دي سواء لقيتك سوما قرقار لهيري مايو محايلة شرد قبان مارتيا أيان لان لقصوه شروط شرد إلهي نقوقبتي أيانك صبح مركا هذا وحا صداد يشا وحا سلقوية لهلو ماشي تيبا نهرت الله مركا إلهي وحور سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون أيوه الله سبحانه وتعالى قرآنك مركا وحوية فضائشيسة
asaga maartay yaa iska warami doona mar hadii waxa weeye kitaabka ilaahay aanu bilaabayno oon waxa weeye asaga ku sii jeedno waxa markaasi aad ka ogaa doontaa wax kasta asaga ka ogaa doontaa asaga wuxuu yahay cilmul awwalin wal aakhirin cilmigi dadka hore iyo dadka dambe kutubta ilaahay iyo munazalada aheedo dhan asaga ayaa lagu soo kulmiyay marka waxa weeye quraanku sidaas ayuu maartay u weeyah haddaan markaas hadda dhanka axaadiistana aanu soo qaadano aayadaha quraanka ka waramayo aad ay u tira badan yihiin fadaaishiisa waxaanu soo qaadanaynaa xadiis oo imaam muslim oo wariyay saxiixiisa oo ku wariyay oo laga wariyay saxaabiga jaliilka ah oo Zayd ibn Arqam shaybkaas laga wariyay radiyallahu anhu waxa uu dhahay Zayd ibn Arqam قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خضيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة وعود رسول كان عليه الصلاة والسلام مالين أيان نبو دحدين استاغونا أنغو جوغنا ميل ليرادو خم لدهو عيل أو مارتيا خم ليرادو أساغو نبو عليه الصلاة والسلام نو خطبة أخرنا آيه إلا مرول برسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسة هي أمد ديسة maxi u khayr ayuu uga hadli jiray asagoo markaas noo khudbaynay khudbadan ma aantii jumcada ma aan ee waa mid wacdiya oo muhaadara weey markaas meeshaas la khum la yiraahdo oo ceelkaas uu ku yiilay Maka iyo Madiina u dhaxaysa fahamidallahu wa asna alayhi wa wa'ada wa dhakara ayuu dhahay Zayd ibn Arqam rasuulku alayhi salatu wasalam ilaahi buu ku mahadiyay alhamdulillah ayuu ka bilaabay maaratay khudbadiisa الله أيو فاليه صفة لائق أهلي كفاليه ضدك أيو وعديه ضدك أيو حسوسي جنة إيا النار أيو وحوال بو حسوسي يا رسولك كبعد أيو حوضي أما بعد محل شاهد كأيو نوشي يا انت أتكدي بوضع رسولك ألا أيها الناس إنما أنا بشر ضد يهبو أنو وحانا بشر بني آدم أيانا أنو بشر بني آدم أيانا أدون كان إنان كوار ليقوم تلقلين يوشك أن يأتيني رسول ربي وحاسود دقاية ربي جيجا رسولك أو صادري ملك الموت إنه مارتيا وصود دقدقه أيا صود دقدقي صوله فأجيب مركز أنا أقول أن أجيبه أو مركز سوى حوالي أرواح دي الروح يقلقاده وإني تاركم فيكم ثقلين waxaan saidin kaga tagayaa oo rasuulku kaleey salaam laba shay oo culculus ayaan idin kaga tagayaa laba shay oo culculus ayaan idin kaga tagayaa awwaluhuma kitaabullah labadaas waxa ugu horeeya oo rasuulku kaleey salaam ilaahi kitaabkiisa ugu horeeya fihi alhuda wa nur kitaabka ilaahi waxa ku sugan hanuun iyo nur ayaa ku sugan kitaabkan ilaahi oo halkaan ka bilaabayno rasuulkeena عليه الصلاه والسلام ayaa tilmaamay kitaabka cadamadiisa iyo waxa uu yahay iyo hadii isaga la qabsado illa liibaanayo hadii laga tagana la hoogaayo ilaa waxa weeye jaahiliyadi qabla al-islam intan rasuulka عليه الصلاه والسلام ilaahi uu san soo bixin caalam mugdi ayaa jiray caalamkan mugdi ayuu ahaa mugdi aan isha farta la helan ayuu ahay oo mugdi lagu socday meel walba lagu dhacaayo mahaaligta lagu dhacaayo godadka lagu dhacaayo dirbiyada lagu dhacaayo meel loo jahaysan aan lahayn quraanka markii ilaahay rasuulka ku soo dajiyay ayaa adduunka iftiimay marka hadda ilaahay rasuulku waxa uu dhahay عليه الصلاه والسلام fihi alhuda wa nur u dhahay waxa ku sugan hanuun iyo nur ayaa ku sugan fakhudhu bi kitaabillah kitaabka ilaahay qabsada ilaahay kitaabkiisa qabsada wasamsiku bihi kitaabka ku dhaga ayuu dhahay rasuulku kaleey salaam kitaabkan waxa ku sugan hanuunka umadu ay ku hanuunaysay dariiqa xaq ah oo sawaabka ah oo waxa weeye qofkii qaadaahi ilaahay subhanahu wa ta'ala oo markaas jannadiisi oo u hogaaminayo halkaas uu tagaayo adduunyo aakhira raali loogaga yahay hanuun iyo nuura ku sugan ee kitaabka ilaahay qaatow dhahay wasamsiku bihi kitaabka qabsada waa isku macna dhowdahay markuu haw dhahay Zayd fahasa ala kitaabillah rasuulku kaleey salaatu wasalaam wuxuu maaratay ku booriyay asxaabtiisa ala akhdi kitaabillah wasimsaaki kitaabka ilaahay inay qaataan oo ay qabsadaan
ayuu ku booriyo ku adkeey hadda waxa weeye rasuulka kaleey salaam hajigiisi oo kitaabkaas quraanka ah dardaaranku ma ahaynin maaragtay inta markaas la joogtee ilaa qiyaamadu ay ka qumayso wixii umadiisa oo adduunka joogo mar walba yimaada ayaa dardaarankaas laga doonayaa oo la amraya oo amarka nabiga kaleey salaam qofkiiba rasuulka rumayso rasuulkiisa jecel dardaarankaas ayaa markaas mar walba dushiisa yaala waxa la rabaa zamanka soo adiga ilaahay ku keeno inaad nabiga kaleey salaam hadigiisa aad qaadato oo nabiga kaleey salaam wuxuu ku booriyay umadiisa aad qaadato ood ummadii nabiga kamid noqoto ood u gargaarto rasuulka kaleey salaam iyo maaragtay kitaabka ilaahay uu la soo diray aad u gargaarto ayaa loo baahan yahay qofka sidaas yeela ayaa nabiga jecel ilaahay alla jecel rasuulkiisa jecel diinta ilaahay jecel maxaa yeelay nabiga kaleey salaam waxa uu dhahay Zayd ibn Arqam fahasa ala kitaabillah dadka wuxuu ku booriyay rasuulka kaleey salaam kitaabka ilaahay qabsashadiisa waraqaba fihi waa ku tarqiibiyo waa jeclaysiiyay waa ku booriyo way af Soomaali waa ku booriyo suma qaala ka bacdi nabigu waxa uu dhahay mid labaad way awwaluhuma kitaabullah wa tawda rasuulku wa ahlu bayti udhakirukumullah fi ahli bayti mid labaad waxa way ahlu baytkayga xurmadiisa hal ilaaliyo ahlu baytka rasuulka kaleey salaam culimada aymatul islaam waxa way qolaba si u sheegtay marka waxa way nabiga kaleey salaam ahlu baytkayga ayaan asagane wa ahlu bayti udhakirukumullah fi ahli bayti ahlu baytkaygana allah idinku xasuusiya inaad xurmadiisa ilaalisaan ahlu baytka in la ilaalisho ayaa la rabaa bani hashim iyo bani muttalib waaye ayay culimadeena shaafiiciyada qabaan intaas waa laga badiyaa waa laga yareeyaa khilaaf saasa waa jira wixii nabiga kaleey salaatu wasalaam nisbadiisa ku abtirsanayo nabiga kaleey salaam nasabkooda uu soo gelayo ayaa markaas ay noqonaysaa hatta culimada bacdigood waxay yiraahdeen waxay noqonayaan qof kasto muslim ah oo mu'mina ayay noqonaysaa marka dadka muslimiinta oo dhan in la dhowro ayay markaas ay tagaysaa ahlu baytkayga ayaan maartay ilaahay alla idinku xasuusiyo rasuul riwaayad kale waxa ku ziyaado ka kitaabullahi fihi alhuda wa nur man istamsaka bihi wa akhadha bihi kana ala alhuda wa man akhda'ahu dhalla kitaabki ilaahay waxa ku sugan hanuun iyo nuur ayaa ku sugan qofkii qabsada oo qaata hanuun ayuu ku sugan yahay qofkii kitaabkaas gefana waa baadiyoobay kitaabkaas qofkii ka tagane qof baad ku sugan weeye qofkii baadiyoobana qof halaagsan waay riwaayad kale waxay ahayd kitaabullahi huwa hablullah kitaabka ilaahay weeye mid ka horo waa xarigi ilaahay man tabacahu kana ala alhuda kitaabkaas qofkii raaca hanuun ku sugan yahay waman tarakahu kana ala dhalalatin qofkii kitaabkaad ka sagane baadi ayuu ku sugan yahay riwaayad tirmidhi leedahay waxay ahaaday oo nabigu dhahay kaleey salaam inni taarikum fiikum anu waxaan idinkaga tagay dhexdiina ma inta masaktum bihi lan tadillu ba'di shay hadaad qabsataan bacdigay adan waligiin baadiyoobayna ahaduhuma a'zamu min al-akhari midna midka kale waa ka weeye wa huwa kitaabullah wa ilaahi kitaabkiisa hablun mamdudun wa harig soo taagan oo samada ka soo taagan min as-samaa ila ardi kitaabka ilaahi harig samada ka soo taagan oo dhulka u soo raaraca weeye qofkii markaas harigaas qabsada qaadahu ila al-jannati riwaayad ahada jannada ayuu markaas u geynaya qofkan qabsana naar ayuu ku dhacaya marka harigan ilaahi oo samada ka soo raaraca aanu ku wada qabsano وعترتي أهل بيتي قرابديدنا أهل بيتكيغا واو ده رسولكو لم يفترقا مكلا تغايان كتابك أي أهل بيتكيغا حرمضوضو حتى يردا على الحول حولك انت يغا أرورايا ويحولكيغا أي يغو إيمانايا فانظروا كيف تخلفوني فيهما وعضو فيستان لبداس sidaad iiga khaliif noqonaysaan waxaad iiga bedel noqonaysaan ka fiirsado rasuulka kaleey salaam marka insha Allah ta'ala waxa weeye 10 koobaad oo fadaa'ilul quraan ka hadlayo kitaabkeena tafsiirka ku bilaabaynay intaasaan ku soo koobaynaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh